shuruudaha la marayo waxa weeyaan ilaa adigu 6 shardi yaan anagu yaan qoranay in qof walba laga helo oo de qof aan reer dhaqan karin ama aan awood ku dhaqan lahayn tan dhahno reer ha guursado dhibkii bay sii kordhini marka shuruudo maartay diinta iyo akhlaaqdu ay kamid tahay qofku inuu caafimaad qabo maskaxiyan iyo maartay iyo jid ahaanba ba kamid ah inuu qofku wax beeli karo isla markaana shaqeeyo oo dhaqaale soo gala bishii uu leeyahay ba kamid ah balwad inuu salahayn ba kamid ah balwadaasi dad badan baan ugu qabsaday oo yiri maxaa idinka balwada idinka galay gabadha maartay guurtoonkii way ka deyn kartaa ninka oo way dhigi kartaa nin balwad anaaba ku qanacsan hadda koor waagan maartay Norway joogay ba ya 2003 inay ahayd baan u maleynayaa ayaan gabadh shukaansaday oo gabadhii waxay weydiisay sigaar ma cabtaa markaasaan ku yiri ma waxay tiri kama helo rag aan sigaar ka cabin marka kulay dooq baa jira laakiin anagu waxyaabihii aan islahayn waa muhiim baan soo qornay waxa kale oo kamid ah inuu lacag yar uu qofku bixiyo oo istiwaan gelina taasoo ah taan ugu dhaqdhaqaaqeen maaragtay wixii aan kaga caawin karno aan kaga caawinayno marka inaha marka la eego qofka waraysi khaas ah baa laga qaadi oo arrimihiisa ku saabsan hoose xogtiisa inuu reer leeyahay in kale waxa shuruudo kale oo kamid ah inuu saninku reer lahayn baan nidi dad badan baa runtii nagu kacay oo yiri madiintaad ka soo horjeedaan diinta kama soo horjeedo hadaan dhawaanu dadka iska bilowdan baan caawini inaan diintii ka hor imid macnaheedu ma aha laakiin de qofkii maaragtay reer leh waa qof faakihaysi rabo weeyaan iyo wax dheeraad ah isaga raadsan kara laakiin anagu waxaan xoog saareynaa dadka aan reeraha lahayn isla markaana reer yeelan kara oo wax dhaqan kara waxa kale oo jirta hambalyo fara badan oo dumarka la qabo halkaan ooga timid oo telefoonada loo soo diray oo yiri qodobka waad ku wanaagsan tihiin halka ha ka jixin ragga reeraha la niman yahay naga galaafanina marka de anagu inaan colaad cidna ka gal lama rabno laakiin de eeda fara badan oo dhinacyo kala duwan ka imanaysan way iska jirtaa marka tashiyo fara badan baan runtii yaan sameeynaa oo wixii lagu wanaajin karo shirkadan bulshada waan ka qaadanaynaa wixii maaragtay talooyina waxaan hadda la balansanahay san sheegay wadaado ama culimo ka socota golaha sare islaamka oo isniinta insha Allah ta'ala aan la kulmi doona iyagoo maaragtay nagala talin doona de nimco walba nusqaanteeda ay leedahay inkastoo shirkadan loo baahnaa oo ay bulshada wanaag ku soo kordhinayso laakiin waxa laga yaabaa dadka qaarkii inay xumaan ay uga faa'iideystaan ama maaragtay isbarashadan dhalinyarada isbarayna hata marka wixii tala iyo wixii maaragtay xagga diinta shariicada ay isleeyihiin waad ka yaraha gaabiseen inay tala naga siiyaan iyadana qorshaha inoogu jirtaa sidoo kale gabdhaha iyagana shuruudahaas 6 shuruudo la mid ah baan ku xidhnay waxa kamid ah oo maaragtay gabadhu haday garoob tahay in qoyskii hore uga soo burburay ay cadeyn ka wadato warqadii furitaanka inay wadato yaa kamid ah shuruudaha waxa kale oo kamid ah in gabadhu ay caafimaad qabto sidii wiilka kale maskaxiyan iyo maaragtay xagga kalaba iyo jid ahaanba qodob aan ku soo darnay oo dadku ay dhahan qaarkood ha laga saara baa jira kaasoo ah cudur bariyaan dambe gabdhaha aad ugu soo batay oo suuxdin iyo maaragtay waxaan la yiraahdo qoonta iyo aan ku soo darnay shuruudahanaga qudooda dad badan oo nagula taliyay baa jira inaan ka saarno laakiin nuxurku ma aha in gabadh qoon leh ama suuxdin leh aan la guursan karin nuxurku waxa weeyaan in la isu sheego wixii jira oo qofku haduu xanuunsan yahay uu sheego maaragtay qofka kale oo ninku haduu balwad leeyahay uu gabadha u sheego oo cadeeyo oo qofku shaqo u sahayn oo sadin shaqadaasan maaragtay haya marka de nimco walba nusqaanteeda ay leedahay waxa laga yaabaa waxyaabo negative ama aan wanaagsaneyn inay shirkadana soo kordhiso laakiin boqolkiiba 90 hawl loo baahnaa oo dadku aad ugu wada farxeen baan keenay waxaana barnaamijkan anigu u bixiyay wacyi laba ama wacyi gelintii labaad sababtoo arrimaha shaqada maadaama in badan ka soo waxaynay oo dad badan oo dhalinyaro ah hadda ay wacyi gashan yihiin oo ugu yaraan 10 dhalinyaro oo hadda shaqo xamaali ah oo wax walba inay qabtaan diyaar u ay halka ku qoran yihiin
yaa waxaan maaragtay is iri xaggan kalena waxbaad ka qaban kartaan oo bulshada maaragtay arrinkaas wacyigelin baad samayn kartaan dooda cilmiyeedyo yaan rabnaa inay arrintan ay dhaliso oo dawladdii iyo culimada iyo waalidka iyo waxa dhan arrimahan laga wada doodo marka shirkadani waxay u baahan tahay taageero dhinac walba aan ka helno si hadafkii laga lahaa looga gaaro. hagaag shirkadan qoys abuur markaad asaasiis ma jiraan haddii noqoto dhanka dawladda iyo haddii noqoto dhanka hay'adaha gargaarka waxaad aad garab ka hesho ma jiraan? maya cid aan garab weydiistay ma jirto. inta badan anigu waxaan jecelahay wax walba inaanan uga joogsanin waxba kaa maqan ama dhaqaalaha noqoto dhaqaalaha kaa maqan ama wax kala kaa maqan aan uga istaaga ma jecli. waxaan jecelahay hadduu fikir igu dhasho oo fikirkaa inuu macquul u yahay oo u arko waxaan kale dib u ka imanay inaan bilaabo. xafiiskanaga haddaad aragtaan koley warbixin baad maalin dhaweyta kasoo diyaariseen miisaska iyo kuraasta taali iyo waad garan kartaa meesha waa meel iska raf ah oo iska dadku qaar baan ugu yiri xataa miis quman iyo kursi fiican maxaa soo dhigan weyday. marka dhaqaale la'aan baa jirta laakiin wax la'aan baa jirta waxba lama qaban karo ma aha macnaheedu. shaqada aan qabanayno muhiimadeeda yaa ka muhiimsan oo anaga macna weyn noogu fadhida. marka adeegyada waxyaabaha yararka noo yaal iyo alaabta iyo materialku wax macna nooguma fadhido. caadiyan maalgelin waan u baahannahay haddii aan helayno shirkado na maalgeliya oo maadaama fikir fiican la nimid intay maaragtay na maalgashadaan isla markaana iyaguna naga faa'iidaystaan waan soo dhaweynayaa. laakiin inaan cid barbarin oon dhaho waxaa naga caawiyo annagii inaan wax caawinaan rabnaa marka inaan annagii haddana gacmaha horsano waan kasoo horjeedaa mabaadi'deyda ka mid maaha. okay Sidiiqow intaad hawshan qoyskan shaqo abuur aad ku guda jirtay ma jiraan dad aad hawsha aad u fuliseen oo isku guuleyseen oo hadda reer degan ah? waa su'aal aad u fiican. way jiraan waxaana xusid mudan shiinow oo aanan bulshada weli u sheegin intaanaan hawshan caadi u bilaabin muddo adigu dhowr bilood ah yaanu si hoose usoo wadnay oo tijaabo ah bal inay hawshani hawl hirgeli karta tahay in kale. marka ilaa iyo 4 qoys reera ah baan dhisnay oo hadda dhisan oo maaragtay weli aan ciyaal isku dhalin laakiin qaarkood uur isku leeyihiin. ilaahay wax khayr qabaan uga rajaynaynaa. waxaa kaloo jira maadaama arrimaha shaqo abuurka ka shaqeynahay waxaa jira dad intaan maaragtay gabdho maalan meelahay ka shaqeynayeen laga guursaday baa iyaguna jira. marka halkaasaa oo fikirka intiisa badan uu igaga dhashay. marka kadib hadda 3 cisho ka hor baaban arrinkan soo shaac bixinay oo bulshada u soo bandhignay. 3 cishana ilaa hadda dhowr qoys dhowr maaragtay dhalinyaro ah oo isbarnay oo hadda sheekadii wata baa jira. sheekadan dheerna anagu waan kasoo horjeednaa. haween waa in nuxurka laga wada hadlo oo maaragtay kadibna maaragtay waalidkii iyo dadkii maaragtay arrintan ay qusaysay lagala xiriiro. laakiin dhowrkan sano ee la wada xiriiraya qolba meel la istaba ordahayo inta badan dhibkeeda iska leedahay. marka arrinkan waa arrin aan hoos u tijaabinay oo natiijo leh oo la hubo oo maaragtay aad ay bulshada ugu baahan tahay runtii. Sidiiqow hawshan markaad labada qof ay isbartaan oo isbarteen hadda way isbarteen oo way tageen oo inay isguursan ku heshiiyeen idigu ma halkaas baad uga haraysaan mise ilaa ay guri galaan baad yaad la soconaysaan ogaanaysaan? anagu halkaa ugama hadheen ilaa iyo guurkooda waan la soconaynaa. waxa u weyn waa aasaasanahayna ma aha inaan dad isbarno. dad inay isbartaan uu iska sahlan tahay inkastoo dadka qaarkii ay ku adag tahay. shaqadanada waxaa ka mid ah dhalinyarada oo kaleeto haddii qaarkood shukaansigu ka halaysan yahay inaan shukaansiga la toosino. qaar waxaa jira dadka laga habaaray af Soomaaliga waxaa laga yaabaa wiilku gabadhu shukaansanaya inuu sheekada uga bilaabo diracan aad qabto ayeydii baa noociisa oo kale qabi jirtay. marka wixii tala sim baa ku jirta arrimahanaga isbaritaankii baa ku jira. waxaa ku jira marka la heshiiyo kadib haddii wax caqabada ay waalidka kaga timaado ama wiilka xaggiisa ama gabadha xaggeeda inaan xal la raadino oo waalidkii la talin siino oo aan maaragtay la dhirin hawshii ilaa guurkoodu ka dhacayo. weliba hadday maaragtay meelahan ay tahay aan joogno inaan kala qayb galo farxadda iyo xafladda. waxaa kaloo ka mid ah oo fikir ah oo wadanaa in dadka dhaqaalahoodu uusan badnayn
iska tabarta yar maadaama ay ku adag tahay inay aroos keligood dhigtaan in koox ay u dhigtaan oo 10 qof 15 qof 20 qof wax la yiraahdo guur wadareed ama zawaaj jamaaci oo carabaha oo kale laga sameeyo inay sameystaan xaflad qurux badan baa u dhacaysa kharashkiina mid walba wax yar oo naf lahayn baa ku soo aadaysa aroos qurux badanna meeshii uu ka dhici dabcan arooska anagu ma rabna inuu noqdo aroosyadan la qaaqaawan yahay fisqiga iyo balaayada ka socoto mid maadaama waxaan wanaag laga rabo in marka horeba ilaahay lagu raali geliyo baan rabnaa marka fikirka qudhiisa baa maaragtay yaanu rabnaa inaan dadka la wadaagno waxaan soo dhaweynaynaa mar kale ku celinayaa ciddii arrimahaas nagala qayb qaadanaysa maaragtay ama namaal gelinaysa ama nagu taageeraysa ama fikir fiican na siinaysa marka arrinku waa saas walaal sadiiqow afartii qoys hadda aad yeesheen oo hadda dhisan ma jiraan mid ka midood isleedihiin aan ilaahay midkaas baa xogo aad ku dhibtooteen oo caqabadaha dhanka familiga iyo idinkaga yimaade maya runtii hal qola maaragtay si aanan jeclayn yeelay oo si hoose isu yar guursaday markii hore waxaan ay qodba sirrada dhahaan qodba sirradaan aanu guuru ma aqaano qodba sirradu waxaan u aqaanaa maaragtay waa xatooyo waa gabadh weligeedii laga xadayo oo maaragtay sunnada aan waafaqsanayn wey marka hal qolo oo saas samaysay baa jira laakiin aduu markii dambe si caadi ah waalidkii baa loogu tagay halka arrin waan ka yara xumaaday runtii laakiin inta kale oo dhan si caadi ah buu dhacay wax walba la qabanayana kulli khalad buu dhici marka in la dhaho armu khalad dhaca dadna hawl dhan oo ummadan loo fulin lahaa laga istaago ilama haboona oka bal qoys abuur dadka lixaad kala maxay idinka qorshaysan dadka lixaad kala dadka ayay ka mid yihiin qofku hadduu lixaad leeyahayna inuu qalbi leeyahay ama uu dhintay macnaheedu maaha waa dad inaga ina la mida runtiina dulmi fara badan baynu ku haynaa marka qorshaha waxaa noogu jirta mustaqbalka insha allahu tacaala dadka lixaad kale inaan ka qayb gelino howlahan aan wadno oo dad lixaad la iyo dad lixaadkiisu dhammaystiran yahay ay isguursan karaan wacyigelin noocaasa inaan samayno haddadan aan kula hadlayo dad lixaad la oo nala soo xidhiidhay baa jira oo guurdoona waxaan u raadinaynaa dad maaragtay ay isguursadaan waana ku faraxsannahay bini aadanimada ayna faraysa islaamnimada ayna faraysa soomaalinimada ayna faraysa marka dadkaasi waa dad inaga inaga mida iyaga keligood ma ahee waxaa qorshaha noogu jirta iyadana inaan wacyigelintanada ku darsanno dadka aan lixaadka lahayn laakiin la takooro qabiilkooda lagu takooro iyaga qudhooda in maaragtay takoorkaas isaga laga saaro hawshaasi inkastoo hawl aad u ballaadhan oo annaga naga ballaadhan ay tahay laakiin wacyigelinteedaan cid walba gaadhsiinaynaa ama culimada ha noqoto ama ha noqoto oday dhaqameedka ama dawladda ha noqoto midna waan kuu sheegayaa shiinow waxa weeyaan haddii la rabo wax in la xaqiijiyo waxa weeyaan wixii waa la sameeyaa innaga waxaa inugu badan sidaa ha la yeelo dadkaa dulmiga ha laga daayo af weeye waxaynu مثلا هدو مدحوينها deegaanku uu dhaho dadkaas takoorka ha laga daayo hala guursado waa inuu isagu guursado bilaabo sheekha imaamku haduu dhaho dadkaas dibka ha laga daayo waa inuu isaga bilaabo si loogu daydo hadii maartay imaamku maartay ninka oday dhaqameedka caanka uu dhaho waa inuu maartay isagu bilaabo siyaasigu sidoo kale to ninka abwaankii sidoo kale to inaga waxa weeyaan marka waxaynu waa af weeyaan ficil baa loo baahan yahay waxyaabaha intii aan hadda wacyigelinta ku dhex jiray aan ogaaday waxaa ka mid ah shaqadayda doobiga oo kaleeto markii hore dadku aad bay ula yaabanaayeen laakiin dhalinyaro badan baa hadda furatay inaad la socotay in kale mooyaane shaqooyinka hadda aadka loo waxeeyay ka mid tahay jawigeedu wuu isbedelay wuxuuna u baahan yahay wax walba in la jabiyo oo maaragtay adigu aad wixii u bilowdid haddii dadka oo dhan maaragtay ay dadkii la takoorahayay lagu yaaco oo iyagana laga guursado iyaguna inaga guursadaan yaa la caaya hadhow yaa la dhihi hebel baa saasa isku wada mid baan noqonaynaa marka dadkan maaragtay lixaad kalena waa sidoo kaleeto dad lixaad la oo waxaa jira inaga karti badan inaga aqoon badan inaga fiican inaga qalbi wanaagsan sidoo kalena dadkan kalena iyaguna waa la mid marka danteena aan garano
inagu haddaynu xuquuqda aynu isku leenahay aynu isisiino wax badan baa inoo hagaagi laakiin dulmi fara badan baa runtii dhexdeena ka jira saameynteedana way leedahay oo dadka hadda ii imanahaya ee maaragtay guurdoonka ah waxyaabaha qaarkood ay kaala hadlayaan waa xoogaa waa waxyaala caadiyan qof meel kale kusoo noolaan jira ay dhib ku tahay laakiin haddana wixii aan qaban karno waa inaan qabanno